digniin tani waa laga yaabaa inay kugu adkaato. ma og tahay sida aad u seexanayso inay saameyn ku yeelan karto caafimaadkaaga? ogow, si kasta oo aad u seexato uma wanaagsana caafimaadkaaga. inaad u seexatid caloosha iyo dhabarka aad ayay raaxo kugu leedahay, laakiin uma wanaagsana caafimaadkaaga. xitaa mararka qaar halis ayaad ku gelin kartaa. haddaba waa tan sababtu. kow, dhaqaatiirtu waxa ay leeyihiin markaad ku jiifatid caloosha, halbowlayaasha dhiigga ee lafdhabarta ayaa shaqadoodu ay aad u yaraataa, maadaama madaxaagu uusan toosnayn, taas oo keeni karta in uu yaraado dhiiggii tegi lahaa maskaxda. dadka leh kolestaroolka marka ay ku seexdaan caloosha waxay halis ugu jiraan inay maskaxda ay noqoto oksijiin la'aan, ayna joojiso shaqadeedii caadiga ahayd. labo, feeraha ayaa noqda kuwo cadaadis oo saaran yahay, taas oo keeni karta inaad heli weyso neef kugu filan, jirkaaguna oo waayo oksijiin ku filan, aadna soo kacday subaxii adiga oo daalan, hurdadana ay kugu filnaan weyso. saddex, calooshaada uma wanaagsana, waayo xubnaha u dhow caloosha sida beerka iyo kilyaha waxa ay joojiyaan shaqadooda inay si wanaagsan u qabsadaan. mana ahan mid wanaagsan in raaxo yar aad caafimaadkaaga ku weysid. sidoo kale haddii aad ku seexatid caloosha oo buuxda adiga oo dheregsan, micnaha aysidka caloosha ayaa dib u soo laaban kara ilaa dhuunta, taa oo keeni karta gastric. afar, wejiga. markii aad soo kacdid adigoo ku jiifay wejigaaga in badan, markaad wejiga ku haysid barkinta ama aad ku jiifatid, waxa xumaada wareegga dhiigga ee maqaarka, kala bixinta iyo cadaadiska waxa uu hoos u dhigaa dabacsanaanta maqaarka. marxaladan ma ahan mid subaxii oo keliya ku eg, ee waxa laga yaabaa in maqaarkaagu uu duuduub yeesho, micnaha canaabyo uu yeesho, gaar ahaan dhinacyada wejiga iyo xagga sanka. number 5, inay qoorta hal dhinac ahaato muddo badan ayaa sababi kara in aad soo kacdo subaxii iyadoo ay qoortu ku xanuunayso. 6, kala goysida jilibka, xusulka iyo cagaha maadaama ay si qaldan u qaloocsanaayeen muddo badan ayaad ka dareemi kartaa xanuun. 7, sidoo kale waxa ku xanuuni kara lafdhabarta subaxii markii aad soo kacday. haddii uu qofku qabo wadna xanuun, ku seexashada caloosha waxay u keeni kartaa dhibaato kale, sida inuu sare u kaco cadaadiska halbowlaha dhiigga. sidoo kale waxaa jirta mararka qaar oo ay qofka u wanaagsan tahay inuu ku seexdo caloosha, sida caruurta yar. badanaa caruurta yar waxa ay ku seexdaan calooshooda waxayna ku dareemaan kalsooni dheeraad ah. sidoo kale ilmaha yar marka ay ku seexanayaan calooshooda waa in ay barkin ka hooseynin. badanaa dhaqaatiirta waxa ay ku taliyaan haddii uu ka yar yahay 1 sano canuga in loo seexiyo dhabarka ama dhinac. sidoo kale dadka leh kelyo xanuunka laga yaabaa inay ku nifisaan haddii ay ku seexdaan caloosha, waayo markaan ku jiifno caloosheenna ma lahan wax cadaadis saaran kelyaheenna, taa oo fududaynaysa inay si fudud u gutaan shaqadooda. mararka qaar waa ku wanaagsanaan kartaa haddii aad ku daashay isticmaalka kombiyuutarka, si qaldan aad u fadhisay, garabka ama dhabarka ku xanuunayo, waa inaad u seexatid waqti yar, intaa kadibna aad bedelataa si aad uga fogaato waxyaabihii aan soo sheegnay. waxaan soo sheegnay inaysan wanaagsanayn ku seexashada caloosha. haddaba sideen isaga dayn karnaa? marka aad seexanaysid, kubad yar xagga calooshaada geli si aadan ugu seexanin. badanaa waxay kugu qaadan kartaa 21 maalin si aad dabeecad cusub u samaysatid, laakiin marka aad la qabsatid waxaad heli doontaa hurdo aad ku raaxaysatid, caafimaadkaagana aan saameyn ku yeelanayn. ka waran doorashada noocaad u seexan lahayd. 1, inaad u seexatid dhabarka adigoo barkin lugaha ka hoos marinaya ayaa ugu wanaagsan haddii lafdhabarta ay ku xanuunayso, laakiin uma wanaagsana dadka khuuriya habeenkii, waayo quuradaada ayaa saa'id noqonaysa markaad dhabarka u jiifatid, waxaadna dareemi kartaa inay neeftu kugu yaraato. 2, inaad u seexatid dhinaca bidix waxay yaraysaa dib u soo laabashada wixii ku jira caloosha, sida cuntada, aysidka caloosha ee dib u soo laaban lahaa.
waxaana ka yaraanaya labalabada iyo yalaalugga iyo raaxo la'aantii aad dareemi lahayd. dhakhaatiirta qaar ayaana aaminsan in lagu yarayn karo miisaanka qofka. sidoo kale saynisyahanada qaar ayaa aaminsan haddii aad dhinaca bidix u seexatid in aad riyooyin xun ku riyoonaysid. 3 sidoo kale haddii aad u seexatid iyadoo lugahaaga xagga feeraha ay u laaban yihiin iyo madaxaagana xagga jilbaha, waxay kaa caawinaysaa in aad si wanaagsan u neefsatid, sidoo kalena lafdhabarta ay dabacsanaato, laakiin uma wanaagsana qoortaada. 4 haddii aad u seexatid dhinaca midig, waxay u wanaagsan tahay wareegga dhiigga, sidoo kalena waxay yaraysaa halista xanuunka Alzheimer. fiiro gaar ah dhinaca midig inaad u seexatid waa sunnada nabigeenna sallallahu alayhi wasallam. culimada qaarna waxay yiraahdaan hurdada oo loo seexdo dhinaca midig waa hurdadii ambiyada. faa'iidada ay leedahay waxaa ka mid ah qalbiga waxa uu u shaqeeyaa si raaxo leh, laakiin haddii uu qofku u seexdo dhinaca bidix waxa laga yaabaa inuu cariiri dareemo. adiga ayaa dooran kara nooca ku wanaagsan adigoo ogaanaya waxa uu jirkaagu u baahan yahay. inta ugu badan haddii aad leedahay xanuun, kala tasho dhakhtarkaaga nooca aad u seexan lahayd. dhab ahaan dadka badankood waxa u wanaagsan in ay bedbedeshaan nooca ay u seexanayaan habeenkii, ayna u seexdaan dhabarka iyo weliba dhinacyada. ugu dambeyn, kama hadlin inaad u seexato fooraar sida shimbirka oo kale. maya uma seexan karno. noocee ayaa ugu habboon ee aad u seexan lahayd adigu? commentiga inagu reeb. mahadsanid.